shanta lagu sheegay labadan kana waa kor kana hoos la yiraahdo hal coday isku yihiin marka shanta lagu sheegay marka intaan ka heysay intana waa geeyad macnaheedu ma aan laba toonaan geeyay ma isku hal way haaftoon marka kan soo inta ma joogo soo doo ma haaftoonku waa kana marka aan taariikhda dib u milicsano 1950 ilaa burburkii 1991 waxaa masraxyada gobollada iyo degmooyinka waddanka dadka madadaalin jiray hobollo magacyo caan ku lahaa waddanka Soomaaliya guud ahaantiid waxaa kaloo jiray mu'allifiin u shaqayn jiray dhaqanka ha ahaado mid waqooyi koonfur banaadir ma iyo maxaa tiriba dadkuna aad ay u jeclaayeen Barre Maxamed Fiidow oo ku magac dheer Leento waa shakhsiga maqaalkeena uu quseeyo waxa uuna ka mid ahaa dhaqaajiyaasha fankeennii barisamaadka balse inta aana guda gelin ujeeddada sheekadan daawade waxaan kaa codsanayaa inaad janalka subscribe inoo saarto leegtuna waxay caddaynaysaa inaad ka heshay ka hadalka sheekadan maasanid Barre Maxamed Fiidow oo ku magac dheer Leento waxa uu ka mid ahaa da'yartii bartamihii 70-maadkii fanka soo galay isagoo fanka ka soo galay tababaridda iyo macallinnimo ubaxii degmada Holwadaag kadibna ku biiray kooxdii halgan waa kan isagoo ka hadlayay safarkiisii fanka aad baad mahadsantahay bismillaah walxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan ku faraxsanahay Cumar horta aniga hadda 22 sano ka dib magaalada Muqdisho dhuumaal baan ku imid meel tuulaha halkaan aan iska degay anoo aad u baqayo cabsado wadanka wax badan ka maqnaa cidaba inay ogaato meedii hore waan ka dhuumanayay marka haddana adigu FBI baad igu noqoto saari soo heshaa la yaab leh horta waana kaaga mahad celinayaa inta kadib taariikh kooban anigu miyi baan ku dhashay magaalo Ceelbuur la yiraahdo tuulo ka tirsan oo Dirin la yiraahdo meel barigeeda oo Cawsuuna la yiraahdaan ku dhashay waqtiga aan dhashay lama sheegayo mar rabo da'deedu run in la ogaado laakiin cabaaraysi jirtaa intaas kadib anoo yar baan soo galay magaalada markaan soo galay waxa la geeyay school oo la dhihi jiray waagi hore waxa la dhigin jiray ilaahdo seeraalan dhiga jiray cabaar markaan dhigtay waxaan u bedeshay school music baan bartay macallin music baan noqday waa sii socday anoo isla dhalinyaraha aad u da'yar waxaan noqday la xamaystaan noqday markaan musiga kabanka iyo galeriinka iyo bartay kadibna taaliif baan galay heeso badan baan sameyn jiray kuwa aan sameyn waa la xamayn jiray musiga waa tumi jiray Barre Maxamed Fiidow waxa uu Ilaahay heebad u siiyay curinta heesaha gabayada saarista laxanka iyo waliba ku looqeynta heesaha waxa kale oo jiray heesa badan oo isaga curin laakiin uu laxanka saaray Barre Maxamed Fiidow murtida qiimaha baaxadda leh ay heesihiisu leeyihiin waxay u suuro gelisay in fanaaniinta qaranka badankooda ay ku luuqeeyaan heesaha uu curiyo isagoo aanan ku koobnaanin keliya kooxda uu ka tirsanaa Barre Maxamed Fiidow waxaa kale uu curiyey riwaayado fara badan oo laga dhigay gobollada waddanka intooda badan iyo golihii murtida iyo madadaalada ee National Theatre haddaan wax yar oo ka mid ah suugaantiisa ku xuso maqaalkeenna waxaa ka mid ah heesihiisa heesaha jacaylka iyo kuwa arrimaha bulshada wuxuu abwaan Barre Maxamed Fiidow ka tiriyay heesa aan ku soo qaadan karo kuwooda ugu caansan yaa caguhu ku jaban oo u qaada hanuuniye allahayow maxaa iga qabsaday xaliime cudweyn zulfa marna farxiyo fiska hayaan badan cabdiqadar xasan caasi waalidiinow cabdiqaadir jubba iyo nadiifo cali kulane si uun iigal ixtiraam xabiibo xasan tooxow waa dhalinyaro nadiifo cali kulane waa ammaanta inaad u qalantaa la foole iyo xabiibo xasan tooxow cakuye xabiibo xasan tooxow markaan dadi jiray 15 xasaadan samatar kaska cad xabiibo xasan tooxow caashaqa dhabta uurkiyo qalbiga xabiibo xasan tooxow sidii ulaha
nadiifo cali kulanle iyo lafoole heeskii halow cabdi tahliil iyo xabiibe xasan tooxo ruunay adaan dadka kuugu jecelahay lafoole xeerkii dumarka sidii nirigta maandeeq adaa sida xariirta ah gefkii inaad xambaarto heesaha abwaanka isaga uu qaado waxaa ka mid ahaa ma intaan ka badanaa wax la aamusaa uu marna qaaday axmed mooge sidoo kale darmaanta qaaliga ah oo ay la qaaday xabiibe xasan tooxow adaa webi iyo bad wada helay maryam mursal heeskii qaybaalad soo ma aha aadan goobe haddii aan u jaleeco dhanka iyo riwaayadaha waxaa ka mid ahaa riwaayaddii qabri hadimo labadeenna waa kii nafsi weel u culatay wakhtigii nasiib wax la hubo ma haysaa bohonyow oo ay jilaayaal ka ahayeen xaawo hiiraan iyo cabdihiraad maxamed caali liibaan iyo xaawo jalaato ayaa iyaguna qayb ka ahaa riwaayaddii beeney raadkaad raacdo kugu maqan adduunyoy howl badana taada isla yaab joog maqan hadal kubagan xog ogaal weydii intaan kuma soo koobi karo abwaan barre maxamed fiidow leento heesaha uu curiyey kuwa uu qaaday iyo kuwa uu la xameeyey balse qaybtii koowaad halkaas ha inoo joogto maqaalkeena ayaan intaas ku soo koobaynaa la soco qaybta labaad daawade waxaan kaloo kaa codsanayaa haddii ay jiraan suugaan badan ama xog badan oo aad ka hayso abwaan barre maxamed fiidow kommentiga inoogu soo qor si qaybta labaad aan u sii ballaarino sheekada.